labada maalmood ee ugu mudan noloshaadu waa maalinta aad dhalatay iyo maalinta aad garatid sababta aad u dhalatay. Mark Twain oo ah qoraa Maraykan ah. Horta maxaad u nooshahay? Waa maxay ujeedada jiritaankaagu? Ma ogtahay inaad leedahay hibo iyo tayo ayna jirin cid kale oo leh? Ma ogtahay inaad tahay jaad gooni ah ambaba unique ah? Ma ku baraarugsan tahay in jaad gooninimadaadu tahay tayo iyo hibo dunida kala dheer tahay, una baahan tahay inaad dunida kale u soo bandhigto oo aad uga faa'iidayso? Balse si aad hibadaada iyo tayadaada dunida wax uga taransato, aduguna waxaad ugu tarto, waxaad u baahan tahay inaad marka hore aqoonsato ujeedada nolosha iyo sababta aad u jirtid ee dunidan u joogteed. Markaas ayaad noqon kartaa qof jiritaankiisa iyo ujeedadiisa nololeed dunida wax ku soo beerin karaan.